بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهية ما جاوزها. وبابها الوضوء ويسيسي مرة هل مر لويسيسته وحبنها هل مر لدقه وحيسك وحندانوي، ومرتين لو قور لويسيسته وحبنها لو قور لدقه، وثلاثا صدح قور إن لدقه ولويسيسته، وكراهية ما جاوزها وحي انت ضافه كراهي نمتكيس، يعني إنه كراهية يهي وحي صدح ضاف صدح كبضا إن لدقه إنه كراهيته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحول توضأ ويسيستي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة هل مر أيو ويسيستي وحبنها أودقي. رواه حوري الجماعة باورسي إلا مسلم ويه. وفايدين إياه إن حبنها مرمر لغو قابسن كرو وإن اللازم هين وحي هل كبضا هلكو إنه لازم يهي أو فرض يهي وإجماع والإسلوق يهي، لكن waxa laga doodayo waxa weeye wixii halka yar wixii halka badan ma dhihla wixii halka badan kaas way mid ka hadlay marka ama biyahayso ama ha kugu yaraadeen ama ha badnaadeen hal mar wad ku kaaftoomi kartaa. وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ويسيستي مرتين لبا قور وحبنها مدول برلبا قور بودقي. رواه أحمد والبخاري. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ويسيستي ثلاثا صدح قور أيو ويسيستو حبنه دقي. رواه حوري أحمد باوري ومسلم يا مسلم باوريي. صدح ذا حديث waxay ku kala saabsan yihiin maratan wa maratayn wa thalathan tarjamada mid buu ku saabsan yahay. jumhuur ahli ilm waxay qabaan wixii halka ka siyaadsan inay mustahab tahay oo ay sunno tahay oo ay laazim ahayn macna. ama wixii waxa lagu doodsan yahay madaxa iyo labada dhagood baa muranku ka jira, waana soo marnay iyaga ma saddex baa la marin ma laba la marin ma hal baa lagu gaabsan doodeeda waan soo marnay, laakiin inta kale ayaa laga wada macna. طيب. وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال وحول جاء وحيمد أعرابي نر بادية أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ويمد يسأله حال ويدين يا نبي عن الوضوء ويسقادتك فأراه وحان لين يا ثلاثا فأراه وتصيده فأراه نبي وحو تصي أعرابي ثلاثا صدح قور أيو تصي ويسدي أيو تصي أو صدح وقال وحو نجري النبي صلى الله عليه وسلم هذا كني الوضوء ويسدي هذا الوضوء كني ويسقادتك فمن زاد الروح زيادية على هذا كان كركيس كزيادية وإنت كزيادية فمن زاد الروح الزيادية على هذا ككركيس فقد أساء وحميي وتعدى واحد قدبي وظلم ظلم السمي. رواه حوري أحمد والنسائي وابن ماجه، وكذلك وحصو صاري أبو داود ابن خزيمة. شيخ الباني لو حولي حسن صحيح. أبو داود رواية دي سوحي قدرتي زيادة فمن زاد أو نقص روح السيادية أما إنتا كالنسقامية زيادة النقص وزيادة الشاذة وضعيف
sidaas daraaddeed buusan lafdigan ku keenin. ayib in marka laga siyaadiyo xadiidkani tarjamada qaybta uu waafaqsan yahay waxa weeye ama ku aadan yahay wa karaahiyati maa jaawazaha wixii saddexda ka badan in la dhaafiyo inay karaahiyo tahay wixii saddexda ka siyaadsan inay karaahiyo tahay dhaafinteedu. karaahiyadaasi waxaa qaba culimmada badankood akaru ahlilcilmi waxay qabaan wixii saddexda ka siyaadsan inay makruuh tahay. qaarkoodna waxayba leeyihiin waa xaaraan lianna waxay ka mid tahay min mujaawasati xuduud illaahi bay ka mid tahay ilaahay xuduuddiisii oo aad gudubtay bay ka mid tahay macnaha. ayib sidaasaana raajixo wixii saddexda ka siyaadsan lianna waxaa ku jira israaf baa ku jira biyihii ood ku israafaysa macno la'aan iyo xuduuddii shareecadood gudubtay ayaa ku jirta ma bannaano marka wixii saddex iyo wixii ka yara unbaa mashruuca macnaha. baabu maa yaquulu idaa faraqa min wuduu'ihi wuxuu baab u yahay maa yaquulu waxa uu odhanayo idaa goortii faraqa uu ka faaruqo min wuduu'ihi wayseqaadadkiisa wayseqaadadka markuu dhammeeyo ducadii uu akhrin lahaa buu baabu yahay. can cumar bni khadaab radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa minkum idinka mid ma aha min axadin ruux oo yatawada'u weysaysanaya oo fa yusbiqu dhammaystiraya alwuduu'a wayseqaadadka dhammaystiraya oo xubnaha si fiican u gaadhsiinaya uma markuu waysada dhammaystira kadibna yaquulu dhahaya ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha mid xaq lagu caabuda inaysan jirin ila allaahu alla mooye waxdahu keligii xaaluu yahay oo laa shariika lahu cidina ayna wax la wadaagin. wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan cabduhu addoonkiisii inuu yahay warasuuluhu iyo kii uu soo dirsaday ilaa haddii uu jiro ruuxaas sidaana uu yidhaahdo futixat waa la furi lahu isaga futixat waxaa loo furayaa lahu isaga abwaabu ljannati jannada iridaheeda athamaaniyati ee sideedda yadkhulu wuu geli ama yadkhulu xaal uu gelayo min ayihaa toodii uu shaa'a doono sideeddaa mid alla miduu doono ayuu ka gelayaa. rawa waxaa wariyey axmed baa wariyey wa muslim wa abu daawuuda baa wariyey. nuskhadayda ruuxii haysta oo middan uu muxuu ahaayey xaqiijiyey moxamed subxi xasan xallaaq xadiidkaas bilowgiisa wuxuu ku qoray daciif saasaa ku qoran saxna ma aha waa ismoodsiis waxaan u malaynayaa qalinkaa ka xaday ama dabcaddaa khaladay daciif baanigii qoray ya soo saas ma daciifkaas sax ma ama dabcaddu ha qalado ama sheekhaba ismoodsiis ka dhacda ha noqday sax ma xadiidku waa xadiis saxiix. ayib wuxuuna faa'iidaynayaa inuu dikrigaasi uu yahay mustaxab markay weysadu dhammaato istixbaabkaasina culimmadu waa isla ogolyihiin oo khilaafka ma joogo in dikrigaasi uu mustaxab yahay. ayib waxayse ku sheegaan culimmada inay bidco tahay dadka qaarkoodoo markay dikrigaa akhrinayaan fartaagga macnaha fartaaggaas isagu waa bidco aan sal lahayn lama hayo. ayib waliaxmeda axmed waxaa u sugnaaday wa abi daawuuda fii riwaayatin riwaaye dhexdeed waxaa ugu sugnaaday xadiidkan ay wariyeen man tawada'a ruuxii weysaysta oo fa axsana wanaajiya alwuduu'a wayseqaadadka uma kadibna rafaca kor u qaada nadarahu araggiisa iyo indhihiisa ila asamaa'i xagga sare u qaada oo faqaala yidhaahda ducadaa iyadaa marka laga wadaa faqaala hada ducaa. ayib wasaaqa alxadiida xadiidkii buu marka kaxeeyey oo dhammaystiray. riwaayada axmed iyo abu daawuud waxay iyadu siyaadisay ruuxu markuu weysaysto weysadana hagaajiyo dikrigaana uu akhrinayo ducada ka dambeeya waxay ku dartay inuu indhaha kor xagga samada u taago uma rafaca nadarahu ila asamaa bay ku dartay. ziyaadadaasina waa ziyaada shaadda waay waa daciif saas way macnaa ziyaadadaasi waa ziyaada daciifa bal munkara waay lianna sanadkeeda waxaa ku jira ibnu cammi abi caqiil oo majhuula ku jira
isagaana la gooni noqday ziyaadada iyada marka waxaa ku jira nin majhuul ah oo haddana mukhaalafo sameeyey waana munkarka waxa loo yaqaano waa saas daraadeed waa ziyaada daciifa jiddan xanaabilada qaarkood baana daliishaday oo yidhi indhaha in kor loo qaado samada loo la fiiriyo ayaa sunna ah riwaayadaasay daliishadeen daciifada ama lafdiga daciifka bay daliishadeen ma sugna marka indhaho cirka loo taagay iyo farto kor loo taagay iyo kullu dalika waa waxaan salahayn tayib ma sugna waxa kale oo jirta iyadana ziyaada allahumma ij'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirin ziyadadaasi sheekh albani alayhi rahmatullahi wuu saxiixinayaa laakiin muhaddisiinta qaarkood waxay leeyihiin waa ziyaada iyaduna shaadda waa saas macnaa ziyaada daciifa weeyo nin la yiraahdo Ziyaad ibn Hubaab ayaa la gooni noqday bilay oo ragga intiisii kale ku khilaafay marka shuduud bay ku xukumayaan tayib baabul muwalaati xiriirintii buu baabu yahay fil wuduu'i waysada dhexdeeda la xiriiriyo waysada la xiriiriyo waxa laga wadaa in xubnuhu intaynan kala ingegin ay waysadu isgaadho oo muxuu ahaayay uusan waqti badan u dhaxayn waqti qeyri caadi ah inuusan u dhaxaynin taasa muwaalaadka laga wada an Khalid ibn Ma'dan an ba'd azwaaji an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabiga xaasaskiisa qaarkood waxa laga warin wuxuu ka warin anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rasuulku ra'a inuu arkay rajulan ninkaasoo yusalli tukanaya kaasoo fi dhahri qadamihi gomadiisa dhabarkeeda uu ku sugan yahay lum'atun ay ku sugantahay ama lum'atun ay ku sugan tahay iftiin oo qadru dirham qadarkiisii qiyaastiisa kala lum'adu waa dhalaalka waxaana laga wadaa meel aan biyihii taabanin oo iska ingegan oo uu iftiimaysa sidii muxuu ahaay iftiinka kale u baxaysa rajulan oo yusalli tukanaya ayuu arkay kaasoo fi dhahri qadamihi lum'atun ay ku sugan tahay meel ingegan oo iftiimaysa taasoo qadru dirhamka qadarkiisii qiyaastiisa kala lam yusibha taasoo uusan aynan gaadhin almaa'u bihi aynan asiibin fa amarahu wuxuu amray rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu amray an yuciida inuu soo celiyo alwuduu'a waysaqadka inuu soo celiyo soo weysalay rawaha wariye ahmad baa wariye wa abu daawud baa wariye wazaada wuxuuna ziyaadiyay abu daawud was-salata fa amarahu an yuciida alwuduu'a was-salata saasay macna riwaayada abu daawud macna in wuxuu amray nabigu inuu weysadana soo celiyo salaadina soo celiyo sanadka xadiidka dacfi baa ku jira maxay nin la yiraahdo baqiyatu ibn walid ayaa sanadka ku jira ninkaasi wuxuu caan ku yahay fi nafsi saduuq waaye laakiin waa mudallis waliba tadliiska noociisa ugu shar badan buu caan ku ahaa isagiyo muxuu ahaayay walid iyo tadliis at-taswiya leeyahay sida saxiixana tadliisu at-taswiya waxa la rabaa ninku mar hadduu qabo in sanadka oo dhan tasriix bisama' uu ku yimaado sheekhiisa iyo wixii ka dambeeyo waxa yeelay meel kastuu gelin karaa tadliiska gelin karaa baqiya xadiidkan marka xadathani isagu wuu yiri wuu cadeeyay laakiin sheekhiisa yaa cancana ku jirta meeshaas marka laga baqaya inuu tadliis ku jiro saas daraadii dacfigaas xadiidka ku jira sanadkiisa laakiin wuu xoogaysanaya qala al-athram wuxuu yiri qultu waxaan li ahmad waxaan ku yiri hada kani isnaadun jayyidun kani masanad fi amba qala ahmad wuxuu yiri jayyidun wa fi ayn ma ahmad alayhi rahmatullah xadiidkan waxaa xoojiyey ibnu turkumani iyo ibnu alqayim ibnu xajar sheekh albani sanadkiisa dacfigaasa ku jira qaarna waxoogaa indhahay ka laabayaan laakiin si la yidhaahdaba xadiidka waxaa xoojinaya xadiidka ka dambeeya iyo xadiidkii anas een soo marnay isaguna waa xoojinaya macnaha ayib in ku soo marnay darsigeennii xalay aakhirkiisa aan ku soo marnay baabu ghasli rijlayni wa bayaani annahu alfardu xadiidkii u dambeeyey ee nabigu dhihi jiray ninkii irjic fa ahsin wudu'ak xadiidkaasina uu marxati kacaya macnaha waxa kale uu marxati kacaya xadiidkan Umar ee soo socda wa an Umar ibn Khattab radiyallahu anhu anna rajulan ayaa tawadda'a waysaystay fataraka markaasuu wuxuu ka tagay mawdi'a dhufrin
عدي ماشيت على قدمه قمدي سكركيد وعلى قدمه كس يعني مال عدي الليق إن يرو عدي ذا الليق وهي معنى موضع قدم مال عدي ذو أي يعني أي دقمي كرتوه على قدمه أو قمدي سكركيد كسوغان أيو كتغيو بيه أين قارين وهي معنى فأبصره وحى أركي النبي أي أركي صلى الله عليه وآله وسلم فقال مركز وحوري ارجع نغو فأحسن وناجي وضوءك ويسقادت كاغا وناجي قال وحوري فرجع ونقضي فتوضأ مركز سوى سيستي ثم كدبنا صلى ديبو قلت كذا صلاة حتى واكل نقضي روى حوري أحمد باوري ومسلم ولم يذكر موسى شيء مسلم فتوضأ موسى شيء رواية مسلم وحوي فرجع ثم صلى فتوضأ هذا كما جرت معنا لكن وحوي مربى هذه سو ناج ويسد سو ناج توحوا النقض وينو سو يستون طيب أحمد غير كبا يعني زيادة فتوضأ إسكاله حديث عمر هي حديث بعض أزواج النبي اللي جوريني هي حديث أنس هوريكو صامرنيبا وأحاديث اللود للشنيو ويسد إن لا حريريو إن لازم تاه oo hadii ay kala go'do oo intaad qaar dhaqdo qaar kamida muxuu ahaay waqti ka soo wareego inaad soo bilowdo mooyaane kuguma filla intii hore inaad deysato kadibna aad inta kale dib ka dhaqdo maadaama xubnihii kale ingegeen oo waqti u dhaxeeyay waysada dhan waa inaad ku noqoto waa xagee laga qaadanaya xadiistan laga dilishanaya waxa laga dilishanaya nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiiska hore markuu arkay ninka lugtiisa qiyaas dirham kale ayna biyihi gaadhin ma uusan ku dhihin kac meesha lugtu biyuhu aynan gaadhin soo dhaq sooma kac soo dhaqo meesha biyuhu ka labnaayeen ayna gaadhin inta biyaha soo gaarsi lama dhih laakiin maxaa la yiri waysadii oo dhan ku noqalay waxay u dilishanayaan marka culimada qabta muwaalaadka u dilishanaya waxay leeyihiin laana wax weeyaan waqti baa ka soo wareegay waysadii xubnihii hore dhaqitaankooda saas daraadeed baa loogu celiyay beelay wakadalika xadiidkan umarna waa sidaas oo kale nabigu markuu arkay sallallahu alayhi wasallam ninkaasi cidi qadarkeeda lugtiisa ayna biyihii gaadhin wuxuu ku yiri kacna qosoo waysiis marka waa soo waysiistay waysadii buu ku noqday waxa ka muuqata marka lama dhihin meeshii biyaha gaarsi ee waysadii dhan baa lagu celiyay muwaalaadkii baa meesha ka baxay beelay macna طيب oo in la xiriiriyo oo muxuu ahaayay isku xigto sidaasi muwaalaadka masalada ah inay waysadu isku xigto xubnuhu ayna kale ingegin waxa waajibinaya muxuu ahaay طائفة من العلماء وانا madhabka xanaabilada waxay leeyihiin waa laazim hadayba kale ingegaana waqti u dhaxeeyo waa in lagu noqday leeyahay ama jumhuurtu xanafiyada iyo jadiid madhab shaafiiciga iyo ظاهريada iyagu waxay leeyihiin waa sunno qaarna way kala qaadayaan hadii halmaan uu uga tago iyo cudurdaar haduu uga tago iyo hadii kale kala qaadaya haduu kas uga tago oo muxuu ahaay ay waqti u dhaxeeyo kasna uu sameeyo waxay leeyihiin waa inuu ku noqdo hadii laakiin halmaan u geeyo ama cudurdaar baaba ku yimid isagoo xubnihii dhaqaya ayaa duruufi ku timid tiiba marka keentay inay kala go'do waysadu labada xaalana waxay leeyihiin dib uu ka dhameystirayaa ee ku noqon maayo tafsiilkaas marka masalada ku jirta fuqahada agtooda macna baabu jawaazi almuaawanati fi alwudu ihtiyatku wuxuu ku jira iyo dadaalku in muxuu ahaayay aad waysadaadu ay isku xigto xubnuhu ayna kala ingegin abdullah ibn umar baa waxa ka sugan bi sanadin fi ghayati as-sihha sanad aad sahih ah ayaa abdullah ibn umar waxa ka sugan fi yani muwatta malik bay ku suganta inuu intuu suuqa ku soo weysiistay lugihii oo wax u laaban yihiin buu soo tagay waqti kadib uu lugihiisa dhaqday abdullah ibn umar bay ka sugantay waana adilada ay dalishanayaan qoliyaha dhahaya muwaalaadku sharti ma ah macna baabu jawaazi almuaawanati fi alwudu wuxuu baabu yahay jawaazi almuaawana isu kaalmaynta banaanideeda fi alwudu'i waysada dhexeeda la isugu kaalmeeyo kaalmayn biyaha la isugu kaalmeeyo dhowr macnaba way noqon kartaa ruuxan kari karin in biyihii loo keeno waa muaawanada nooc ka mid in biyihii lagu soo dhaweeyo lagu soo shubo waxaa ka mid ah in biyaha lagu shubshubo oo weel marka dhaqayso xubnaha biyaha in korka lagaaga shubo lagu caawiyo waxa gali kartaa oo iyadana ka mid ah in xubnaha laftoodiiba lagu dhaqo
kulli waa mucaawano wa in biyihii lagu keenayo weelkii lagu soo diyaariyo waa mucaawano inaad adigu dhaqanayso xubnaha laakiin lagugu shushubayo waa mucaawano in xubnaha laftoodiiba lagu dhaqahayo waa mucaawano intaba mucaawanay soo galaysa laakiin way kala xeel dheertay taas waa inay marka bannaan tahay waysada dhexdeeda ayuu baabu yahay وعن المغيرة بن شعبة أنه إسو كان وحوها أنه أمر يشاني كان وحوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها مغيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لتشرن كيسوها في سفر لحدي سعودال أي النبي قال له صلى الله عليه وسلم وأنه إسو ذهب وتجي لحاجة أنه نبي ذهب وتجي لحاجة حاجة أي وتجي آذي أقول له إسقى أسقنات وأن مغيرنا جعل وحو بالله يصب جعل وحو جد قلي يصب إنه شبه الماء بيها عليه نبي كركيس والحال هو النبي يتوضأ ويسيسني حالة النبي ويسيسني أيو سجن بيها وشبهي فغسل مركز النبي قل وجهه وجهه ويديه لبدي سكعمود ومسح برأس مدحيس ومسح وحكى له ومسح على الخفين لبدا خفنا ومسحي أخرجاه بخاري مسلم صار وعن صفوان بن عسال قال وحوري صببت وان شبي الماء به بان شبي على النبي بان أشبي صلى على النبي كركيسان كشبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر سفر كدحديسة إيا والحضر نجاديك في الوضوء ويسد الدحداد سفرت إيا حضرتها سفركم معنا وحوي بمعنى حلي وتشوغي أو سنسفر أهني إسقى السفر وأنا أشبه رواه ابن ماجه باوريي وكذلك بخاري باوري في التاريخ الكبير وأنا ضعيف وهي حديث كاس سند كيس وحى كتشرة لونينه مجهولة نين اللي يراد حذيفة بن أبي حذيفة نين كلا بعضنا وليد بن عقبة اللي يراد لبعضنا نين ولا قونين ولا جرنا إني بس سند ككتشرة سياس ضرادي بحافظ بن حجر العربي رحمة الله في التلخيص وحول فيه ضعف شغل باننا وضعيفي حديثكم مركب مصقنا labada xadiis wuxuu u keenay imaamku inuu ku yiraahdo way banaan tahay in weysada la isugu shushubo طيب wala kala qaadaya masalada haday masalada muaawanadu tahay in biyihii lagu soo dhaweeyo lagu keeno oo lagu caawiyo taa iyada dhibaato male khaasatan marka aadan kari kareenino biyihii inaad soo shubato oo keensato aadan kari kareenin markaas inay waajib noqoto ba dhici karaysa laano ma la yatimu alwaajibu illa bihi فهو واجب ويمركز طيب hadday macnuhu tahay biyaha lagu shushubayana oo in biyihii lagu shushubo xaaladda aad u baahan tahay oo xaaje u qabto oo ama daciif tahay ama xanuunsanayso cudurdaar aad leedahay inay iyadana bannaan tahay bila karaha iyadana la islaama diidana waxa laga duudayo waxa weeyaan mar aan damba ku hayninba adigiiba caafimaad qabo oo xoog badan tahay biyihii waad shushuban kartaa xubnihiina waad dhaqan kartaa ما لغوغو شوشوبي كرا marka iyada taa iyada way macna bacdu ahli ilmi ba karahaysanay xanafiyada iyo shaafiiciyada waji kamida ayaa karahaysanaya laakiin jumhuurtu waxay qabaan yaani la karah wax karahiya kuma jiro طيب oo muxuu ahay maalikiyada iyo xanaabiliyada ay qaba waxay leeyihiin wax karaha male xadiistan ay u dilishanayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam waa loogu shushubay una weysaystay wax diidayana ma jiro طيب masalada saddexaad ama xaaladda saddexaad oo ah xubnaha in lagu dhaqdhaqo oo yaani wax way ka siyaasan biyo lagu shubahay shubid kaliya ma waxay dheer tahay xubnihii baa lagu dhaqdhaqayaaba ayadana xaaladda aad xaaje ku hayso oo aad tabar daran tahay ama cudurdaar aad leedahay ayadana khilaaf male inay bannaan tahay ama markayna dani ku haynin oo adigu aad xubnahaaga dhaqan karto waa makruuh cinda al-jumhuur karaahiya ku jirta ilay laakiin waxay isla ogoliyeen xaaladaha soo dhan marna xaraan ma noqoto taas macna xaaladaha soo dhan way bannaan tahay waxa laga doodayo waxa weey ma karaahiya mise karaahiya ma laga fiican yahay ma sidana fiican mise sidana fiican taas laga doodi mooyee laakiin xaaladaha oo dhan inaad dad ku caawiyaan oo xubnaha ku dhaqaan oo biyaha kuugu shubaan inay weysadiina ku asaxayso xaraamna aadan gelin waa la isla ogoliyay inta طيب معنا وحويان هذا الكلام جوجا تايدا معنا باب المنديل شكمان كيبو بابو يهي بعد الوضوء والغسل هذي يعني منديلك ومرض الله اسمر مريوه او لسكو انجتشيو فستلاتيغا شكمانكا مريها كله wax kasto la ismar mariya mindil kale ila طيب
xataa waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaayey baalaan waraaqaan layska marmariyo gacmaha iyo tishuuga aan dhahno tishuuga xataa mindiil baa la dhahaa marka wax kastoo wax layskaga tirtiraa mindiilka la yidhaha baabulmindiili mindiilkiibuu baabu yahay bacda alwuduu'i waysada kadib walqusli iyo qabayska kadib ahaaday bimacnaa markaad qabaysato ama weysaysato qoyaankii ma iska tirtiri karta oo shukumaan ama maro ama tishuu waxaad tidhahdaba ma iskaga ingejin kartaa way macna mise laguma ogola can qays bni sacdin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi zaaranaa waxaan na soo siyaartay rasuulullahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam baa na soo siyaartay fii manzilina guriganaganu nagu soo siyaartay buui fa amara lahu wuxuu u amray buu uhi sacad baa wuxuu u amray sacad ibnu cubaadat alansaari wey ayaa wuxuu u amray biqaslin qabays buu u amray nebiga wuxuu u amray in biyo uu ku qabaysto loo diyaariyo fa wudica lahu waa loo dhigay biyihii fakhtasala waa qabaystay uma markaa kadibna naawalahu sacad wuxuu siiyey nebiga milxafatan karin yaroo laysku marmaro milxafadu waxa weeyaan waa maro jidhka lagu marmaro waaye oo taqriiban sida shukumaanka kale laysku ingejiyuu ka wadaa marka uma naawalahu wuxuu siiyey milxafatan oo masbuuqatan lagu rinjiyeeyey bizacfaraanin aw warsin zacfaraan ama geedka waraska le labadu waa nabaataadka dharka lagu rinjiyeeyo waay marka maro yaroo karin ah oo geedaha nabaataadka lagu rinjiyeeyey ayuu markaa yani u fidiyey ama u gacanta uga dhiibay sacad uu nabiga uga dhiibay sal ly slm fashtamala markaasuu isku marmaray nebigu sal ly slam biha iyadii buu isku marmaray markaasuu isku duuduubay ayib rawa waxaa wariyey axmed baa wariyey wabnu maajah ibnu maaja baa wariyey abu daawuud ayib sanadkiisa dacfi baa ku jira waa midda koobaade waliid ibnu muslim in la yidhaahdo oo baqiyo oo kale ah oo tadliiska midka ugu shar badan oo tadliisu taswiya isaguna caan ku ahaa ardayga awsaaci buu ah waliid ibnu muslim dimashqi ayaa waxaa ku jira taswiyadiisaa ku jira shar waxaa laga baqayaa tadliiskiisi waa looga baqi waxaa kaloo ku jira in la yidhahdo moxamed ibnu sharaxbiil oo isagana majhuulah labadaa cillaba waa ku jira sidaas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey sheekh albani caleyh raxmatullah laakiin xadiis kalea baabka ku soo aroortayoo badankeeda aan sanadkeeda dacfi ku jiro waxaa ka mid a maalan xadiidu mucaad ibnu jabal oo tirmidi uu soo saaray oo daciif xadiidu caaisha oo kadalika tirmidi uu soo saaray oo uu daciifiyey xadiidu salmaan alfarisi ibnu maaja baa soo saaray sanad daciif xadiidu abi bakrin bayhaqi baa soo saaray biisnaad shaad sidaas daraaddeed baa alimaamu tirmidi wuxuu yidhi laa yasixu can الnabiyi fi hada albaabi shay-un waysada in layska ingejiyo wax nebiga kaga sugani ma uu jiro xadiida saas way macnaa wax xadiidoo ku tusaya ma jira buuhi axaadiista ku soo aroortay kulligooda daciif buu leeyay macnaha ayib laakiin oo macnaha wax xadiisoo sugaya ma jiro xataa xadiidkan meesha inoo yaalla hadduu sugnaan lahaa kuma cadda nebigu marada uu isku duuduubay inuu isku ingejinahay soo ma inuuba isku asturaya baa dhici karto uu meesha kaga soo baxayay soo ma marka kuma cadda ayib saas daraaddeed wax xadiidoo ku tusaya inuu iska ingejiyey ma jiro ayib waa daciif wixii ku soo aroordho dhan laakiin xadiid baa jira halka xadiidee sugani waa xadiidu maymuuna oo bukhaariiyo muslim ay soo saareen oo sheegaya nebigu sal lla lay waslam markuu qabaystay maymuuna waxay leedahay nebigu markuu qabaystay ayaa waxaan fa ataytuhu bikhirqatin waxaan u keenay bay tidhi karin ama gabal mara ah ayib falam yuridhaa ma uusan doonin nebigu sal lla lay waslam ma qaadanin fajacala yanfudu biyadihi wuxuu bilaabay inuu gacantiisa biyihii isaga firdhiyo gacantiisa inuu isticmaalo biyihii isaga firdhiyuu bilaabay nebigu sal lla lay waslam maradii ay ugu keentay inuu isaga tirtirana waa iska celiyey xadiiskaasaa masalada ku sugan ayib xadiidkaasi keliyata wuxuu ku tusayaa inuu nebigu maradii celiyey laakiin waxaa la yidhaahdaa masaladan oo kale oo masalada loo yaqaano yacni waxa weeyaan waa xaadiatu cayn baa la yidhahdaa taxtamilu akar min wajhin muxuu nebigu u celiyey waxyaala badan baa suuroobi kara marada inuu diidanaa laf ahaanteeda inuu muxuu ahay sabab kale ay jirtay waxyaala badan bay ixtimaali karta xaadiatu caynka ixtimaalaadkaasoo kale lana inta badan yacni wax ka qaadashadeedu
غاية ما في الأمر وحي أن كتوسيسا وحا ugu badan ay kutusi karto waxa weeye inaad iska dayn karto sooma ismarmarinta inaad iska dayn karto biyihii gacanta isaga firdhin karto oy taasi banaan tahay buu kutus ama inta wax ka siyaasan kuma tusayso adiga masalada soo ururiye culimada badankood waxay qabaan inayna wax dhiba ku jirin inaad biyihii markaad weysiisato ama aad qabaysato inaad iska ingajiso wax maanico diidaya ma jiro saas macna بعض الفقهاء ayaa karahaystay laakiin al-imam al-muhamili wuxuu soo guurinaya inay ijmaacto leeslo ogol yahay inaysan xaraam ahayn waana saasoo wax daliil oo loo daliishado lama hayo xaraamnimada hal laga doodo makaraha ku jirta mise kuma jirto laakiin wax tahriim ku tusay meel iska dhisaga warkiisu ma bayaalaba sida raajix xoog badan marka waa iska banaanta hadaad iska daysana khayr hadaad isaga ingejisana khayr saas macna dhib male باب صح أبواب المسح على الخفين وباب يهي المسح مسحد لمسحه على الخفين خففك كركودا لمسحه ماشي وحو كجلي دونا خفك مسحديس هي جوربك مسحديس هي موق مسحديس هي كبها مسحدود تصوروا كغا هلي دونا ابواب تنيدا معنا waxaana la kala yiraahdaa khufka waxa la yiraahdaa waa harag kabaha hoostooda laga xidho oo lugta la geliyo waan haragan caadiga naqaano way khufka la yiraahdo marna waxoogaa waa yara adag yahay marna waa khafiif oo waa raqiiq طيب hadduu harag yahay marka waa khuf hadduu harag yahay waa khuf ama jawrabku iyo jawaaribtu sida azhari iyo fayruz abadi iyo sida ay leeyihiin jawrabka waxa la yiraahdaa waa shay lugta lagu maro oo mar wuxuu ka samaysan yahay suuf harag wuxuu ka samaysan yahay dhogorta xoolaha khaasatan dhogorta idada mar laga sameeyo mar waxa laga sameeyaa kataanka iyo qutniga waa geedkan aan dhahno cudbiga aan dhahno cudbiga ama Soomaalida qaar koodna suuf bay u yaqaanaan sama cudbina wala suufna waanu naqaanaa laakiin suufka carabigu wuu ka bedelan kelimatu suuf carabiga hadii la yiraahdo ومحو أهاي وإذا دغرت هذا الصوف اللي هذا اللغة العربية لكن نجا الصوف كواحد أنا وعدبك مركا ووح لقت الجليو أو عدبك سميسن بمعنى مرو كسميسن هو صوما لأن عدبك مريا على كسميسن صوما مركا وشيء لقت الجليو أو مركا سميسن سيدا مركا اللي هذا أي ماذا لغة سيدا كنت الماما يوح النقونية سكسان تهدأ عن حرن النقونية تاسوي معنا يعني شرباديدا ama sugsaanta hadda aan xidhano ayuu markaa u eegyahay maru ka sameeyay macna warka murtidiisu wax waaye khufka waxa la yiraahdaa wixii harag ka sameeyay jawrabkana waxa la yiraahdaa waxaan harag ahayn labadooduna waxa ka dhaxeeya lugta la galiyaa طيب ama muuqa waa u tagi doona insha Allah ta'ala baabun fi shar'iyyatihi khufka masihidiisa mashruucnimadeeda ayuu baabu yahay an jarir ibn abdullah al-bajali wa رضي الله تعالى عنه أنه إساق بالا وكاته ثم كدب نتوضأ وويسيست ومسح وحو مسحي وكرك عنت كمري على خفيه لبدي سقف كرك وضع أيو مسحي فقيل مركز وحا لغيري أتفعل ما سمين هكذا سيدا مياد سمين ما سيدا ديالي بالي ولوكتي هنا دقد الله بهنا مياد ونمسحيت كوكاب سنيس فقال وحري نعم ها ساسا يلي رأيت وحن أركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالك هاتشي ثم كدبنا توضأ ويسيستي أو مسحي على خفيه لبدي سخف كرك وضا مسح ماشي لغة كذا قلا قال إبراهيم وحيري إبراهيم بن يزيد النخعي تابعي صغيرك إبراهيم وحيري وكان وحوها يعجبهم مذ عجب قليو هذا الحديث حديث كان مذ عجب قليو أهاي صحابة التابعين تأيو أدب حجيك وجبوكي تشيرين حديثك محايا لي لأن إسلام جرير سو إسلامي ديسو كان وحوها بعد نزول المائدة سورة المائدة سو دقيتان كذا كدبية متفق عليه معناه وحو كوضا ضد أوحا تشرتي خفك لما صحيو وحا كدن بيسي آيات ويسادة الشيكتي سورة المائدة كجرتي صوما سيداس درادت nimanka masaxa sheegay iyo raga axaadiista masaxa wariyay way horeeyeenoo masaxa waa la nasakhay
ومحل لغو نسخي آيات القرآن كي دهيسا وأرجلكم إلى الكعبين أو دقيتان كشيغس لغا حكم كودو إنو دقيتان يهي آيات مائدة شيكت صوما آيات مائدة مركز دنبيسي مصح نواه الرئي ساس دراد المصح ومنسوخ حديث كان جرير محي أقول جيران مركوه وحديث تكلم كجحجة وحي أقول جيران لأن الجرير وحبصوا إسلامي مائدة مركز سودك تكذب صوما معناه هذا وحوي الرسول كو أركي أو مصحية لبض اللغات لبض خف كركوض مصحية بعد نزول المائدة ماشي مركب وحي يقول بقيان بمعنى نسخي للشيغان يمشرو آيادا وحا كدن به إنه يدو سودك تكذب النبي قو مسيحي جري خفافك مسيحي جري ساسي حديث كجرير أقول بقي جرير معنى ساسو يعني طيب حديث وحو كتوسيا إنه مشروع تهي مسح خفينك طيب إنه بنان تهي ولغاها مركو خف كجرو إنه خفك سيبتو ولغاها نقضو لازم كوما وانا مواطنتا هي مواضيع ذا لقى فهميه تيسير كشريعة تيسير كشريعة لأن الشريعة إنه وحكستو مشقة كيني كره أو مشقة دي سنة غير عادي تهي والله فضودية المشقة تجلب التيسير واحد ما جعل عليكم في الدين من حرج دينك وفضيت هذه مركة حالها قار كل يلاحظه shaygani amuu dadka dhibaa oo dhibaato qeyr caadi ka timaada waa la fududayn lugihii ka saara khufka oo sugsaanta ka saara oo dhaqa oo hadana dib u galiya xaraj baa ku jira saas daraadeed rafcan li hada al haraj ay muxuu ahaayay sharciadu ay loo jiiday macnaha inay banaan tahay ama safar ahaw ama gurigaaga joogo deegaankaaga jooge in khufayn hadaad xirantaho lugtaadu uu shay uu ku jiro aad masixi karayso waa madhabka jamaahiirul ulama salafan wa khalafan ama safar ahaw ama ha ahan طيب بعض اهل العلم waxay qabaan safarta bay banaan tahay waana riwaaya can Malik waa ra'yi dha'ifa qaarna waxay leeyihiin ma banaanaba loo masixi karo iyadana waa ra'yi dha'ifa riwaaya can Malik adhafu riwayat Aisha waa laga wariyaa saxaabada qaar adiga wax weeyaan ahadiista mutawaatirka baa diidaysa maxaa yeelay أحاديث تسوى أرورتي مصح على الخفين كسوى أرورتي وأحاديث متواترة وحلقوا ورياسيدا ينومان دون الصحابة هذا فربان تضباطني زيادة قاركوت قارسية وعن عبد الله بن عمر أن سعد حدثه هو الرمي عن رسول الله بوقوى الرمي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبي مسح إنه مسح على الخفين ككركوض إنه مسحي وأن ابن عمر نسأل وحويدي عن ذلك أرنك عمر بويدي فقال مركاسا وحويدي نعم هابو ابن عمر وحويدي أبي عمر مركاسو يقول ها وصدا سعد الشيخ إذا قرت حدثك أكو الرمبو سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي حقيس الشيء وحون هدوك أقوى فلا تسألها ويدين عنه شيء حقيس غيره سعد عد أنا هنا ورصني ما سعد بابد مرقاتي الرادي وحو كو شيء يقول سعد إساقا نين لور رادي شهيدي مرقاتي ما إساقا كوكو في المربع هدو النبي كاقا شيء ساكو قادبو طيب روح وري أحمد باوري والبخاري بخاري باوري الشيخ وحوني فيه حديث كان وحا كشغان دليل با كشغان على قبول خبر الواحد هل كالروح خبر كيس يور كيس إن لا أقبله أي دليل أقصغان يهو كتصي حديثك بمعنى مسألة ومسألة أنه قنيسة مسألة أصولية يهمحوها فقهاء أيو أبواب استدلال كي أدلة لغو كانوا وخبر الواحد أخبارت أحاديث متواترة أحد وتلاقي به مركا خبر الواحد كمقبول مياه مسماء مسائل خاصة أبواب خاصة يالو دليشن ودليل أنقن أبواب تخاط كون دليل أماه هذا وحو كلية حديث كوحو كمدي أدلة حديث صحابة نين كمدة أما التابعين أما الرواد هذو خبر كانوا كلي أهانتي سوى الله أقبله ما دام إستقل لو كلسوني تاسو كتوسي وانا سيدا صواب كاوة لأن إن لي هذا خبر الآحاد لما أقبله أبواب أصوش خاصة ومذهب المعتزلة بعض علماء السنة أنا كنت أثري أو يري أحاديث متواتر كأن بالغ قادن كرا عقيدة يوحي أصول أحاديث الآحادنا أصول إيه التوحيد عقيدة لو مد لي شنكر مذهب كاس ومذهب المعتزلة
iyaga asal u ah kadibna bacdu culamaa'i sunna ku ta'afuray masalada iyada sidaas way macna tayib waana masalada imaamu shaafici calayhi raxmatullahi kitaabkiisa risaalada uu aad ugu dheeraaday way in uu isbaatiyo yani khabarul waahid inuu maqbuul ahaa cinda jamiici saxaaba oo sidaa lagu qaadan jiray macna aad buu ugu dheeraaday meesha iyada macna tayib xadiidkani masaladaasi waa masalo jaanibiye hadda imaam sheekhu uu sheegay laakiin wuxuu ku tusayaa khufka in la masixi karayo tayib وعن المغيرة بن شعبة قال وحده كنت وحنها مع النبي صلى الله عليه وسلم لجيران كيسانها في سفر دحدي فقضى مركاسو قلت النبي حاجته حاجتي سيبو قلت ثم كدبنا توضأ وويسيستي ومسح على خفيه لبدي سقف كركض ومسح قلت مركاسا وحدي يا رسول الله رسولك الله أنا نسيت مياد هالمانت أنا نسيت يعني وحو أقون جري إن لغاها لدق marka lagu hiyo nabigu korka uu gacanta ka mariyay buu arkay markaasuu rasuulay miyaad halmaantay miyaad salmaantay qultu waxaan iri ya rasuulallah anasiita miyaad halmaantay qaala wuxuu iri bal iskaba dhaafay anta adiga ayaa nasiita halmaamay adaa halmaamay anigu ma halmaamin bihada kaasu amarani amray buu rabbi azza wa jalla kaasu rabbigay amray buu lugtu markay wax ku jiraan inaan korka masax rawaha wariya ahmad wa abu daawud bawri wa dhaif sanadkiisa waxa ku jira in la yiraahdo Bukayr ibn Amir al-Bajali akthar al-muhaddithin waxay qabaan inuu dhaif yahay xadiidku saxiixaynku ku yaala isagoo on wadanin wixii ka dambeeyo qultu ya rasuulallah anasita iyo inta ka dambaysa intaas waxay tahay ziyada munkara wa ziyada dhaif oo munkara waa laakiin qaybta hore oo ah yani wax weeyaan كنت مع رسول الله في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه انت في الصحيحين كي كتالا واسوغنت البخاري ومسلم بي كتالا معنا اما انت ضمبي ايا شاذة او ضعيفة معنا طيب وقال الحسن البصري وحوري روى وحوري المسح مسحيد خفين ككركو ظل مسحه 70 نفسا تضباتا روح فعلا حالي تهي ومنه نبي حقي سكاهات وقولا هذا الحال يتهي منه النبي حق سكاته معنا اما النبي جو سمي اما النبي جو كو الله صلى الله عليه وسلم تضبات صحابي ايار نبي كورنيو ادو تيراداسي رج قار كود با غارسيا اثر كاس حسن البصري وحا سو ساري ابن المنذر ايا في الاوسط كو سو ساري بسنده ساسي معنا معناه وحو تلمام يا حسن البصري مساله مسحيد خفك in ay tahay ahadiisteedu inay mutawaatir tahay waana sida muhaddithiinta mucdamkoodu ama in badan oo kamida ay cadeynayaan oo ahadiithul mas'i ala al-khuffayn wa ahadith mutawatir ilay bimaana wa a'la darajati al-hadith wa min haythu al-quwwa xagga awood ahadiista yani kuwa ugu sareeyo wa laana saxaabada laga warinaya waxay yihiin tira aad u fara badan taabiciintii warkooda iska daa iyo aathaarta kale ku soo aroortay macna باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا سلاداسي marka sidaas weeyo jamaahiir ahli ilmi salafan wa khalafan khilaaf kama jiro dhaxdooda allahumma khilaaf dha'ifa oo malik riwaaya laga wariyo mooyaan baabul masxidi buu yahay ala almuuqayn labada muuqorkooda la masaxo wa ala aljawrabayn iyo labada jawrab korkooda wan naclayn iyo labada kabood korkooda jamiican dhamaantoodba muuqaynka waxa la yiraahdaa دور معناه كفسران الموق وحويان سيده جوهري يمطرزي يا غير كود با اي تلماميان waxay leeyihiin waxa la yiraahdaa الموق الذي يلبس فوق الخف بليه خفka caadiga markaad xidhato ayaa laga dul xidhaa adiga waa sida khufka kala waaye marka isaga laga si dul xidhanaya kaasa muuq la yiraahdaa baleeyihiin طيب culimada qaar koodna waxay leeyihiin وسيد الليث بن سعد لغوريو ابن سيدا الفراء امام النووي نور رجحيو waxay leeyihiin muuqa waxa la yiraahdaa waa darb min al-khifaf waa nooc kamida khufafka khufaf la iska korgashaday ma ahe khufafka noocya ah nooc khufafka kamida muuq la yiraahdaa beeleen marka saas macna adiga mid aad tirahdaba ama khufaf la iska korgashaday ama khuf nooc kamida khufafka ka dhig muuqa macnahaasi ay ku fasirayaan culimadu طيب أما جوربينك وكان هذا الشيء وكان هوري وصف سرنايو
jawrabka waxa la yiraahdaa waa wax lugta la geliyo oo ama dhogor ka samaysan ama suuf iyo ka samaysan cudbi ka samaysan aan harag ahayn ayaa la yiraahdaa jawrabka saas macna idan waa tan soo tilmaanay nacliguna waynu garanaynaa waa kabaha طيب مسائشة سدحدا أما سدحدا مسألة يكجه الله يا أبواب تنيدا عن بلال ابن الرباح رضي الله تعالى عنه قال وحول رأيت وحن أركي رسول الله أيان أركي صلى الله عليه وآله وسلم ويمسح مسحيا على الموقين لوضع خف كركودا والخمار يو عمامة كركاد روح حوري أحمد وأحمد باوري كذلك وحوري ابن أبي شيبة ابن خزيمة بإسناد صحيح وعلى شرط مسلم سيد الشغلباني وليه سعيد أبو داود كوكو شيء طيب لفظك مسح على الخفين هي مسح على الموقين واسكمد ومركان لهنو موق ونوع خفك كمل صوما وعلماء غاركود قبان خمار كان ومثلا صومرنا عمامه مسحيده ايضا ابوابتيدي وانغي هوري صومرنا معنا ولي ابي داود waxa uu sugnaaday kadalika hakim iyo bayhaqina way warinayaan abu daawud waxa uu sugnaaday inuu bilaal yiri wa kana nabigu wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam yakhruju midbahu aha yaqdi halu gudanayo haajatahu haajadiisa uu soo gudanayo faatihi markaasan ula iimaan jiray bil maa'i biyahan ula iimaan jiray uu keeni jiray fayatawadda markaasuu weysaysan jiray wayamsahu wuxuu masixi jiray ala imamatihi korkeedu masixi jiray wa muuqayhi iyo labada muuq korkooda labada khuf korkooda ama khufka kor saaran korkiisu masixi jiray kolba kaad ku fasirtaba tan dambe abu daawud iyo waxa saxiixinaya hakim dhahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albani طيب لكن وحكى مرقات كعية حديث أنس وبيهقي وصوصاري بإسناد فيه انقطاع إيوه ما لا يعرف يعني سنة ضعيفة وكلا شراء وحديث أبو أنس يسقنا ومرقات كعية حديث كاسي مركا وحو فائدين يا موقع إلا المصيح كرم أما أضو واحد كدك خف كرسارا أما النوع خفافك كم إذا كدك إلا المصيح كرو فائدين يا معنا طيب إلا المصيح كريانا جمهور تاقبته خلافا لرواية عن مالك والقول الجديد للشافعي الشافعي في قوله الجديد هي مالك رواية دي ساديدي لكن جمهورته وحي قبان إلا مسيحي كرم طيب خف هدو يهينا وابا خف هدو خف كرس سارين يهينا واتان خلاف كوكوشي رواية مركا حديث لكن خف نوع خف كم إذا ليلة خلاف مالي مركا طيب ولسعيد بن منصور وحا أسقنا في سننه سنن كيسة لحديثة حاله كورنا عن بلال إنه كورنا قال إنه وحيد سمعت وحن مغلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له امسحوا مسحة على النصيف خمار ككركيس مسحة أي خمار والموقي يموق كركيس مسحة النصيف وحكوف السري الخمار هقوك تمدح صارا عمامة يوحي لمن موقنا وكان صور شيخ نوي معنا لفظي إسقع امسحوا على النصيف والموق أما امسحوا على الخفين والخمار أو بلفظ الأمر وضعيف سمعنا زمر يعني حديث بلال وحسحكوا يهي حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكن خف نوع خف كم إذا ليلة خلاف مالي مركع طيب ولسعيد بن منصور وحا أسقنا في سننه سنن كيسة لحديثة حاله كورنا عن بلال إنه كورنا قال إنه وحيد سمعت وحن مغلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له امسحوا مسحة على النصيف خمار ككركيس مسحة أي خمار والموقي يموق كركيس مسحة النصيف وحكوف السري الخمار هقوك تمدح صارا عمامة يوحي لمن موقنا وكان صور شيخ نوي معنا لفظي إسقع امسحوا على النصيف والموق أما امسحوا على الخفين والخمار أو بلفظ الأمر وضعيف سمعنا زمر يعني حديث بلال وحسحكوا يهي حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم نبي فعل كيسي أو شيغو يراد النبي مسحي أما بلفظ الأمر وضعيف بلفظ الأمر وضعيف ومعانا فعل كيسي إنه يهبي كسونا ساسين الجماعة ثقاتكو أي كورنا يعني حديث كان عدي أباهن هقول لابطو مهلين سعيد منصور سنن كيسا مارك لكن حديثك من لفظيسا كله شيخ الباني وحو كو كينيا سلسله ضعيفه ده 2935 نمبركاس كو كينيا معنا marka ma sugna lafdigan iyo lafdiga kale uu eegay amarka labadaba ma sugna laakiin ficilka nabiga sallallahu alayhi wasallam taas sax
sidaasuu sax ku yahay amaa masaxa cala aljawrabayni wannaclayn waxay leeyihiin waa riwaaya shaada oo daciif mukhaalafada daraaddeed ayib laakiin muta'akhiriintii rag u badan ayaa xadiidka labadiisa jumlaba sugaya jawrabaynka iyo naclaynkaba oo ragga sugaya waxaa ka mid a saxiixinaya alimaamu tirmidi ibnu khusayma ibnu xibbaan ibnu daqiiq alciid ibnu turkumani الشيخ أحمد شاكر شيخ ألباني ووحي كدوديان حديثك مخالفة بكم جرتبا لفظك هورين مسح على الخفين وحديث مدح بنان لفظك كلام مسح على الجوربين ورن علينا وحديث مقعب مدح بنان لما حديث مغير لك كلا ورينا يوا لما طريقنا كوكا يمت wax iscaaridaha iyo iskhilaafsan oo la muqaaranaynayo la kala rajaxay meesha ma yaalay doodaasay qoladaasi qabaan si la yiraahdaba labadoodaba jawrabeynka in la masaxo iyo kabaha in la masaxaba waxay leedahay ahadiis kale oo marqaati kacaysa ahadiis kale oo marqaati kacaysa ayay leedahay midalan kabaha masaxidooda waxa ku soo arooray xadiid Abdullah ibn Umar oo uu leeyahay nabigu weysaysan jiray isagoo labadiisa lugood ay ku jiraan kabuhu korkooduna masixi jiray xadiidkaasi waxa soo saaray ibn Khuzayma iyo Bazzar bi isnaadin sahih Abdullah ibn Umar oo sameeyay kabaha masaxay nabigana sidaa sameyn jiray wakadalika ibn Khuzayma iyo Bayhaqi waxay soo saaray ibn Umar ka warinayaan xadiid kaas oo kala ah isagana sanadkiisu uu leeyahay ibn Hajar waa jayyid wakadalika isla macnaha waxa ku tusay xadiid Abi Muusa ibn Maajah oo isaguna ku yimid jawrabeynka iyo naclaynkaba sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin waa saalixun fi muxuu ahaa fi shawaahid dacfigiisu shadiid ma aha culimo aad u fara badan oo salafkii iyo saxaabadii kamidana way ka sugan tahay inay masixi jireen kabaha waxay bi sanad asaniid sihaha ama xasana kaga sugan tahay مثلا علي بن أبي طالب ويكسغنت سند صحيحة في غاية الصحة وحصو صاري ابن أبي شيبة في المصنف طيب وحا قيدي ابن تيمية عليه رحمة الله ومسألة قباء إن كباه لما صحي كروح ليه ومركي سيبي دودو كوكو أدكاتو هذه سيبي دودو أي كوكو أدكتا ولما صحي كريا مركا علي بن أبي طالب نوي كسغنت هاي بعض أهل العلم نوي قبان الدلة دا إيا الشواهد دا سنوي لها هاي كباه إن لما صحي كريا أما مسألة كلو جوربينك أيضا كوسابسن أيضا waxay leeyihiin jawrabaanka masixidoodu ahadiis kale iyadana umar qaati ka caysa jirta oo xoojinaysa kan tayib laakiin ahadiista dhamaanteed hadal baa ku jira sanadkooda wayse is xoojinayaan oo qaar badan oo waxa jira dacfiga sanadkoodu uuna shadiid ahayn marka way xoojinayaan oo xadiidkan ayay xoojinayaan oo bitaali jawrabka in la masaxay amalu saxaaba waxay ka sugan tahay oo asaaniid saxiixa ay kaga sugan tahay saxaabada kamida Abu Mas'ud al-Badri waxay ka sugan tahay al-Bara ibn Azib waxay ka sugan tahay Anas ibn Malik waxay ka sugan tahay Abu Umamah al-Bahili waxay ka sugan tahay Ali ibn Abi Talib bi sanadin fi ghayat al-husn saxaabadaas oo dhan bay ka sugan tahay in la masixi karo jawrabeynka la masixi karay sidaas way macna bal ibn Qudama alayhi rahmatullah fi al-Mughni wuxuu leeyahay as-sahabatu ridwanullahi alayhim masahu ala al-jawaribi ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا بود صحابته جوربك way masixi jireen waqtigoodii wax khilaafayo iyaga kamidana lama hayo waxaana meesha ka muuqata inay isku waafaqsanaayeen jawrabka masixidiis taasina wax weeyaan waa jawaaribta masixidooda way macnaha oo sugsaanta hadaan isticmaalo macnaheedu ay tahay مسألة تاسي وحوي ومذهب كي صحابة رضوان الله عليهم سيدا موقته لكن فقهدي كدن بي واسكو خلافه جمهورته وحي ليهن سوغسك وحا لمسيحي كرا اما جوربك مركو أذقيه وهمر حرك كورسارين يهي اما أؤادو أذقيه ايا لمسيحي كرا سيدا انا وحوي الطائفة من العلماء بالمذهب كي يبديهن ومعنى طيب قالوا وحي ليهن لو مسيحي كرا اصلا ورواية عن مالك قالوا وحي ليهن حتى هدو خفيفيه حتى هدو خفيفيه والله مسيحي كرابي ليه سيدانا waxaan xikaayoday al-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah oo wuxuu ka sheegay inay qabeen Umar iyo Ali iyo Ishaq ibn Rahawiya iyo Daawud al-Zahiri ayuu ka sheegay Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah wana sida saxiixa waa sida raajixa ah waa madhabka dhahaya sogisku ama khafiif han noqdo ama thakhin han noqdo oo qaraha lahaado ha adkaade waa la masixi karaa xadiiskaasana daliil waxa kaloo daliil waa amalu saxaaba oo aan khilaaf lahayn
oo isku waafaqsanaayeen in la masixi karayo muxuu ahaay soksaanta iyo jawaaribta la masixi karayo kabahana iyadana waa taa aan ka hadalay way macna oo waxa qabi Ali ibn Abi Talib ay ka sugan tahay Sheekh Islam Ibn Taymiyyah wuxuu ku qeyday inay yihiin inaad bixintooda kugu adkaato markii kabaha inaad iska bixisay kugu adkaato idan korkaad ka masaxaysa saas ilay macna ahadiistaas loo dilishanay labada mas'ala bana khilaaf ku jira baabu ishtiraat at-taharati qabla al-lubsi waxa jira fuqahada qaar kood oo mas'al al-khuffayn waan ka hadli doonaa shuruudo u dhiga shuruuday dhigaan kutubta fiqiga markaad marayso shuruudo fara badan baad arkay oo muxuu ahaay mesela khufka marka la masixi karo waa inuu adag yahay oo biyuhu ayna ka dusaynin wax daliil oo ku tusay ma jiro wax daliil oo loo hayo ma jiro in sharti laga dhigo khufku inuu yahay mid adag oo biyaha celinaya waa uun musammaha magaca khuf iyo inuu harag ahaan jiray bay ka fahmeen laakiin wax daliil oo kale loo hayo ma jiro waxa kale oo kamida sidoo kale muxuu ahaayay waa inuusan dildilaac lahayn oo meelo uusan ka jeexjeexnayn ayadana wax daliil looma hayo bal saxaabadu waxay lugaha ku qabi jireen kabahooduna waa dildilaacsanaayeen khufafkooduna waa dildilaacsanaayeen soo saasma ilaan wax weydadaan waxba heli karin bay ahaayeen hadana macdaalika wax shartiya ma soo aroorin inuu khufku uusan dilaacsanayn ama duleelin shartigaasi kuma imaanin marka shuruud fara badan oo fuqahadu dhigeen oo aan daliil lahayn oo nas lahayn baa jiro ijtihaadi uu iska amaana طيب باب اشتراط الطهارة قبل اللبس تفضل شيخ آدم باب اشتراط الطهارة قبل اللبس باب يهي طهارة الشرطيين تيدا حرشة كهر بمعنى خفين كمركاد مسحيسو لغو اقول يهي بدل كاد لغاها دقي لهايد إناد مسحبو ومركا aad xidhatay khufeynka iyo jawrabeynka iyo muuqeynka kulli waa markaad xidhatay adoo dahaaro qaba adoo weyse qaba hadaad gashatay ayaa lagu ogol yahay inaad dib ka masaxdo hadhow markay weysadu ka jabto oo weysaysanayso inaadan furineed korka ka masaxdo markaas lagu ogolaanay hadiise laakiin adoon weyse qabin aad gashatay hadhow markaad weysaysanayso waa inaad saarto sharti waa inaad dahaaro qab ku gashatay oo intaadan gashanin aad daahir ahay dahaaro qabkana waxa laga wadaa weyse qabka laga wadaa taasuu baabu yahay عن المغيرة بن شعبة قال وحولي كنت وحانها مع النبي قال جيران كيسانا صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة هبين في مسير صعد الدحدي في مسير صعد الدحدي صعدان أو سعود النبي قال لسعودي فأفرغت مركاسان شبي عليه كركيسان كو شبي بيان وشبي من الإداوة بان كغسو شبي إداوة دوا ويلكي بيها ugu qaadi jiray oo baweyse iska dhig faqasala markaasuu dhaqay wajhigiisa ayuu dhaqay waqasala wuxuu dhaqay nabigu sallallahu alayhi wasallam diraacayhi labadiisa dhudhun wa masaxa wuxuu masaxay bi ra'si madaxiisa thumma kadibna ahwaytu waan laacay li anzi'a si aan uga siibo khufayhi labadiisa khuf si aan uga siibo ahwaytu waan hoobtay oo waan laacay si aan labada khuf uga siibo khadim wa lan mughirah ibn shu'ba wuxuu kamid ahaa يعني النبي صلى الله عليه وسلم خادمين تيسوا كمها وأذيك جرى رسولك صلى الله عليه وسلم طيب فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم دعهما دعهما اسكده لبدا خوف داف معايا فإني أنو أدخلتهما وحان قلي لبدا خوف لبدا لقود أيان قلي طاهرتين حالي لبدا لقود ظاهرين الطاهرتين كوحيون نقريان لبدي لقود بيون نقريان أدخلتهما وان قلي ظاهرتين إياه ظاهرة فمسح مركاسو مسح النبي عليهما لبدي خف كركودو مسحي متفق عليه ولي أبي داود وحاوسقناده إنه النبي يقول صلى الله عليه وسلم دع كتك الخفين لبدي خف كتك لبدا خف دا معي فإني أنو أدخلت وان قليي القدمين لبدي لغود الخفين لبدي خف وان قليي وهما حال أي لبدا لغود ظاهرتان لبدا ظاهر أيهن يقول ظاهران قليي فمسح مركاسو مسح النبي عليهما كركود رواية أبو داود وحي نوفا سيرتي أدخلتهما ضمير كيدون بينو عديس أدخلتهما أي أدخلت القدمين ضمير كاسينو قدمين كون نغني حديث كاوحو فايدي النبي صلى الله عليه وسلم مركو يريد وان مصحي وحو كحري مركان قشاني خفينك لبدا اللغود أيغو ظاهرة أو ويسقبان قليي
iska daawaan masixiyo maxaa laga fahmayaa marka bimacnaa hadduu gelin lahaa ayagoon daahir ahayn inuusan masixeenee siibi lahaa baa laga qaadanaya waana xikmadda kalaamka iyo hadalka ku jira waay saas way macnaha ayib وعن المغيرة بن شعبة قال وحوري قلنا وحن نريد يا رسول الله رسولك إلهي أيمسح ما مسحيا أحدنا متكنا على الخفين لوضع خف كركوض ما مسحيا قال النبي وحوري نعمها إذا قرتي أدخلتهما آد جلسه إذا قرتي أدخلتها مساس يدين قريه أدخلتهما خلط وانك يقرأ نعم هابو إذا قرتي أدخلتهما آد جلسه وهما طاهرتين يقو ظاهرة أيقو إذا أدخلهما من قريه بلا تاء صح أيمسح أحدنا على الخفين قال نعم إذا أدخلهما ساسفيح كلامك وقصعد وغيب وقصعد أيمسح أحدنا صما نعم إذا أدخلهما وإلا أدخلتهما هذه النقطة التفات باقل هذا الكي قيبة كسعدي باوحو إسو بدليا خطاب إسو بدليا وانا خلاف الأصل نعم قالوا حولي نعمها إذا قرتي أدخلهما أوقليا وهما طاهرتان إيقو ظاهرة ومصحة يا مركا روح وري الحميدي وري في مسنده بكوريي بسند صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وويسيستي ومصح وحنا مصح على خفيه فقلت وحنا يا رسول الله رجليك لوضع اللغود لم تغسلهما ما آذن رقن كركم بعد عندك كم رسي خفكم ما آذن رقن قال وحول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما وانجليي والحال هما لبضوض ظاهرتان أي ظاهرين أيوة ظاهر انجلي روح وري أحمد باوريي نبا كتشرا ألا مقعاب ومبهم لكن وحا أمر قاتك عيا حديثك كهري ساس درادت بوح وكن قنيا حسن لغيره وعلى هذا سنده ضعيف لكنه حسن لغيره يعني حسن بما قبله حديث ذا كوريسا أي كحوغي سنية وعن صفوان بن عسال قال وحوري أمرنا وحنا أمري يعني وحكوذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا ونا أمري يا إذن أمري النبي قال أمري أن نمسح إن مسحنا أيونا أمري على الخفين لوضع خف كركوذا إذا قرتي نحن أنه أدخلناهما آنجلينو على ظهر ظهر قبيت كركيذا مركان كوكلينو على ظهر ظهارة كركيد مركان كوكلينو أنه ظهارة قبا لغيه ظهارة قبا مركان قلينو معنا ثلاثا صدح قر إنان مسحنو ثلاثا صدح مع الموضة إنان مسحنو إذا قرتي سافرنا أن سفرنو إنان صدح مع الموض مسحنو ويوما مال إنان مسحنو وليلة يهلهمين إذا أقمنا مركان نقانو مسحو يعني وحوي هدان سعوتنا هين السدح بريء السدح ذا مع الموض ayaanu masaxaynaa waay markaanu weysaqab ku gashanay oo inta ma bixineen korkoom aan ka masaxayno hadduu ruux muqiim yahayna maalin iyo habeen buu masaxaya maalin iyo habeen markay u soo wareegto wixii ka dambeeya waa inuu marka weysaqaadadka imaanaya waa inuu bixiyo oo lugaha dhaqo marka haddana dib ha u gashado habeen iyo maalin cusub ha u bilaabato وهكذا توالي كساسي كسوعنيسا marka طيب ولا نخلعهما إن ننسيب من غائط صحراء درادد إن ننسيب ولا بول إيا كادي درادد ولا نوم إيا هرت درادد ولا نخلعهما إن ننسيب إلا من جنابة درتد مو إن نوحك الأسيب ساس النبي نعمر صلى الله عليه وسلم مددين وو حديدي وحيالها أن لو سيبين إنه وو حديدي وحيالها أن لو سيبين بمعنى وحيالها ويسادة شبيه صباح إيه كينا ويسقادتك واجبيه waa sida saxarada iyo kaadida iyo hurdada iyo oo tag doona waysadu haday naga jabto inaan siibin buu amray waa oo bedelkii aan siibi lahayn oo lugaha dhaqi lahayn inaan masaxno laakiin haday janaaba timaado qabays waajibo marka inaan bixino marka wala bixinaa qabays wala qabaysana sooma oo lugu in la dhaqay u baahan korka laga masixi maayo laakiin ولا نخلعهما إلا من جنابه هذا الجنابة والله سيبها بالاتفاق روح وري أحمد وري وابن خزيمة وقال الخطابي وحيري صحيح هو إساق حديث كان الصحيح الإسنادي وسند كي سميده صحيح أيوه كذلك وحوري حديث كان النسائي ترمذي ابن ماجه ابن خزيمة سيده كلا وي صحيحيان ترمذي ابن خزيمة وي صحيحين يعني
tirmidhi sidoo kale wuxuu ka soo guuriyay sheekhiisi bukhari al-imam al-bukhari wuxuu ka soo guuriyay inuu xadiidka tahsiiniyo xasan u yiri waxa kale saxiixiyay ibn hibban waxa tahsiiniyay sidoo kale sheekh albani ala al-jami' ar-rahma xadiidkaasi marka xadiis sugan waa عبد الرحمن ibn abi bakrata xagga ku saabsan masalada hadda uu daliishanayo idaa nahnu adkhalnaahuma ala tuhrin halkaas laga daliishanayo ama masalada ku saabsan waqtiga la gashanaan karo ee aan la siibaynin ayada baabka soo socdo kaga hadli doona uu baabayn doona baab gooni u sameyn doona وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكورا أنه نبيه رخص إدمي للمسافر روح صعتدا وحو إدمى الرقصي 3 أيام سدح بريء ولياليهن إيهبين ذوذا أي الرقصي وللمقيم الروح جوغاء أن سفر كأهينا وحو الرقصي يوما مال وليلة إيهبين إذا كورتي تطهر طهارقات أو فاللبس أوحد خفيه لبدي سخف أوحد شرط قاسا كحد مركو انتو ويسقاته لبدا خف مركا أوحد أن يمسح أي الرقصي إنو مصح عليهما لبدا خوف كركودا inuu masaxa ayuu idmay nabiga sallallahu alayhi wasallam روح وري الأثرم باوري أبو بكر الأثرم أرضي إمام أحمد في سننه بكوري وابن خزيمة أيا سجن وري والدار قطني وقال الخطابي وحوري هو حديث كان صحيح الإسناد وحكى له صار حديث كالإمام الشافعي ابن حبان بيهقي وحو كسو قورنا يا إمام الشافعي إنه صحيحي حديث كان وأنا سيدا صو حديث كوا حديث سجوا بعض ألفاظه بقاركوس شذوذ كل شيء جيان طيب حديث كاسي أحاديث تاسي دمان وحي فائدينيسا oo dhamaanteed ku yaani ka muuqata masaxu wuxuu banaayay qofka la masaxayo markaad weyse qab ka shatay intaasay faa'iideynay sidaana waxa qaba jamaahiiru ahli ilmi ba qaba hadaadan markii aad gashanaysay aadan weyse qabin inaad siibta weeye ee laguma ogola inaad korka masax weysadiina sidaasi kuma soconayso طيب laakiin waxa isku khilaafsan yihiin يعني إنا طهارة كوجشته بمعنى هذا يسكو خلاف سي لو معنى إنه أكل قات يأكل فهمين قاركود واحد هذا أدخلتهما ظاهرتين وحلا جوضة لبض اللقاط بمركض وضع نقضه أوليك تبيح ذو وجدا بيس الضغميد هذا كب حضه أياد خفك لبض اللقاط بخفك وذا جش جيس مركزات بالله بيس ومركز ويسيداada dhan ay dhameystiranto marka waa inaad gashato sidaas waa sida ay jumhuurtu u fahantay sidaas daraadeed waxay iyagu qabaan hadii inta lugta bidigta dhaqdo oo aad geliso socks-kii ama khufkii aad geliso tii bidixda hayna ay ku laabanta tabiixda ana marka dhaqdo ayadana khufkeeda aad u geliso waxay leeyihiin ma aadan gelinin ayagoo daahir ah صوت معي تاي ظاهرتين كواحد أفهمين بعد كمال الطهارة وإن اللبضة بركي يعني ويسدي أي وضع لما يسترنتو كذب وإن أتقشط اللبضة سياسي الجمهور أفهميان علماء قاركودنا وحي أفهميان وحلقوا وضع ظاهرتين كيكون رموبيسا لقوال بمركي لو ويسيو لدقو أيات ظهارة دي لما يسترنتو بليه midigta markaad dhaqdo dahaaradeedii waa kaamil khufkeedii iyo sockskeeda gali bidixdiina markaad dhaqdo ayaad u gelinaysaa khufkeedii iyo sockskeeda iyaduna markaasay dahaaradeedu kaamilta sida hadaad ku gelisa waxay leeyihiin waxa ku rumoobaya adkhaltuhuma daahiratayn oo macnahaasay marayaan waxaana sida qaba daa'ifa min ulama xanafiyada ظاهرية رواية عن أحمد وحرجحية شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ابن الدقيق العيد ابن حزمي انت صدر ما رجحي وحي ليهن حديث كالظاهر كيسا وحا كم مغضى الظاهرتين كو رموبيان لوقتان مركا دقضو ظاهر واي وحي ذا قلي لوقتان مركا دقضو ظاهر واي وحي ذا قلي وبالله التوفيق وأنم وحي انت كدما يانا مصح هل كاسي مريان هذيك وحوي مفهومك حديثك ايا لسكو خلاف سي سيدا احتياطك يددالكو كوتشيرو خير وحكمها يليه شر توقهي sida dadaalku ku jira wax weeyaan labada lugood dhaqmadoodu markay dhameystirmanto inaad geliso marka ninna kala murmi maayo sooma zaahirka xadiiska marka la fiiriyana waxa xoog badan qoliyahan kale ee dhahayo lug walba markii la dhaqaal la gelinaya
qoladaasa daahirka xadiisku xoojinaya ihtiyaadkuna wuxuu xoojinayaa qolada kale saas daraadeed ihtiyaadka fiican la qaato oo muxuu ahaayay markaad lugaha wada dhaqday kadib gali markaasaad masixi karaysaa macna طيب هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم